warar khatmoy SSCU waxaa ka digtoonaatiin ninkan ra'iisul baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif lagu sheegayo waa nin u shaqeeyo Somaliland waxba uu kugu soo gaban deal ayuu hadda Ethiopia la soo galay waxaa ka dareemaysaa khudbada Muuse Biixi uu leeyahay waa dad naga tabanayo oo dhibaato aysan soo gaarin oo wax yar oo macno lahayn meesha ka dhacay marka ninkan Cabdirasaaq Khaliif la leeyahay ayaa raba inuu ka dulboodo garaadadaas oo dhan iyo shacabkaas iyo jamaahiirtu dhan waraba inuu deal la galo wixii dhiig daatay iyo qaxooti qaxay iyo 400 kun oo qaxday dhibaatana soo gaartay ayuu wuxuu doonayaa inuu hal bacaad ugu lasi ka dhigo marka odagaan Cabdirasaaq Khaliif la yiraahdo ka digtoonaada SSC hadaa tihiin deal buu idinku soo qaatay wax ka jira malahan waxaan uu afka ka idin ka macaaneynayo magaalada dhexdeeda uu ka leeyahay waa gorgortan uu la galayo Somaliland oo idinka raba inuu iibsado marka dhammaan shacabka SSC ku abtirsado dhammaantiin waxa idin leeyahay odagaan ka digtoonaada wuxuu rabaa inuu iibsado waa horgalo weyn oo hoos ka duwan wax kasto qayaana ah oo naftiisa iyo dantiisa uu ku badbaadiyay kaliya baa uu cad وما عدو شعبكاس أفرت بقوله كنوا غحي هذانا إثيوبيا وحو تجي إنه قرقرتن إذا لا سوقله وإذن كان إذا كل شعب بدأ أرجع حساتين مركب موسى وحب مردام أضجان سكيلالية كدكتور هذا عبدالرزاق خليفة هذا يبات إذن كسوقه أساسي هداتين ديل بإذن كسوقلي هذا يسجرة أخذ بذاك الدريم يسا موسى بيحي وليه هاي وحيد عي وحوين معهين وحام يعني الله هين وحوي وكهشين كرنا dad walaala ayaa isdagaalay way la fududahay odaga laakiin asaga lafihiisii buu wataa 1988 kila hadda lafihiisii ayuu wataa wuxuu rabaa in iska ilowdiin 400 oo kun oo qaxday intaas oo qof oo saro la dilay waxaas oo dhan oo dhibaato loo geystay ayuu rabaa in hal bacaad lagu lasay ka soo dhigo habar fadhista lagdin la fududaa hadaba dhammaan SSC hadaatiin ka digtoonaada odagaan Cabdirasaaq Khaliif la yiraahdo وإذن كسو وجهان يهي وحبو يوسن وجهك إذين بدبدلين وحبو يوسن إذين كجبانين ديل بالرواء إنه لقاله داد كان وعلن أو سيدي إيه وعلن أيو دونا يا إنه إذا هوس جيو هذا كدكتون هذا يسوع رنتا سكالين وحاوجري قدوك الكوبات وما أنت مدانته مسارته وحوي دبعته ذا كتير تجبر خصول أو هاي دبعته أينا فري نصيب دخلنا dadkooda waa inaynu xalilo dhibaatadaas caanood si nabad dawlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalkeena joojiye shuruud la'aan ciidamadana waxay iska xakameeyaan qarar ahaanna aynaan ku sii soconin dagaale aynu nabad ka doono bilowgii ilaa halkii u dambeysay maanta waxay la tahay waxa joogana loo taliyo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhega nuur yahay waxaan doo codsanayaa Soomaaliland inay nabad u gudubto sideen u aragnaa dhibaatada maanta xalkeedu inuu yahay xalka aanu aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda waxa weeye gobol Soomaaliland kamid ah dadkooda iyo muwaadiniinta Soomaaliland oo wax ka tirsanaya dawladda oo dawladda ka cabanaya oo ka gadooday waxay u baahan yihiin in loo fariisto la dhageysto dawlad ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qadaban iska garaabo iyaguna waxay ka qadaban ka garaabaan